jaamacadda Golis Farcada magaalada Burco ayaa tababar muddo soconayay kuliyadaha kala ganacsiga iyo dhaqaalaha u soo xidhay tababarkan oo ahaa mid kor loogu qaadayo tayada aqoonta ardayda dhigata jaamacadda Golis waxa munaasabadan ka soo qayb galay gudoomiyaha jaamacadda Golis maayir ku-xigeenka degmada Burco qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer mas'uul ka socday wasaaradda qorsheynta qaranka ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay macallimiintii bixinaysay casharadani iyo mas'uul ka socday wasaaradda qorsheynta tababarka magaciisu sida uu hore u sheegay kayse waxa weeyaan horumarin bulsho oo loo dhameystiran yahay iyadoo aanay bulshada cidina ka maqnayn waaxyihi ay ka koobnayd ayuu waxaan ugu talagalnay waxa ahayd in ardayda intaan internship-ka gelin in la tababaro dabeetana kadib ay ku soo shaqeeyaan oo bulshada ay ugu soo adeegaan hadii alla yiraahdo ma aha markii koowaad ee laga isticmaalay dalka nidaamkan aynu ardayda ku tababarnay laakiin waa markii labaad ayay noqonaysaa. Congratulations for finishing your training. The 14 days that you have been here, you have been training on a number of issues, more especially on how to integrate the community on the issues of development. The knowledge that you have gained within this period of time, you have to put it into practice. You have to put it into use and ensure that Somaliland becomes a better place for all of us. أنا وقادنا مع واحد قرشينته إنه قرشة في عنها وهرجلي يعني أي شام عضنا كذا ينضون فصل كينن يباج كينن به يعني تابرنا عضنا كلا أرديد أدبر نقوم هذا نقيا تذلك المشين يوم حيث ولا شيء يوسف سمران أنا وسارد هانو نسودوينا قبل هانو ونبهنا هاي محيط ولا بعضن إقتصادي قانون وسوق بيرته وسارد قرشين تقارن هير قبل واحد كشغيسها horumarinta maxay tolay arrimaha bulshada khaasatan waxay ka shaqeysaa maxay tolay NGO-ga iyo hay'adaha soo shaqeeya gobolka kale iyaguna waxa halkaasi hadal mahadnaq ka soo jeediyay qaar ka mid ah ardaydii ka faa'iideysatay tababarkani waxaana yiraahdeen sida soo faa'iidnay maadaama anagu nahay ardayda ganacsiga gaar ahaan kuliyadii dhaqaalaha aanu ka socono runtii ardayga marka wax badan oo theory ama aqoon macalinku la soo hor istaago oo loo dhigo faa'iido badan ma yeelanayso laakiin ardaygii markii wixii itusoo taabsiyo loo keeno oo wax badan oo training laga siiyo waxa laga laakiin wixii practical markay noqoto faa'iido badan baa ku jirta ardaydu waa inay ka faa'iideystaan chance-ka iyo chance-yada jaamacaddu ay bixinayso run ahaantii anaguna wax badan baanu ka faa'iidnay khibrad fara badan oo aanan markii hore aanan haynin ayaanu ka faa'iidnay ugu dambeyntii waxa hadalka si wada jira u soo xidhay gudoomiyaha jaamacadda Golis Professor Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer ana ka mid ah hadaladoodii sidatan dalkani waa dal u baahan runtii aqoonteena maanta la idin barayo hoggaankeediina aruurta ku noqotaan madaxdii aruurta noqonaysaan barasaabadii iyo wasiiradii idinkeedu ku jiraan dadkii dhaqaalaha iyo maxay ahayd economic-ka ummadan hore u wadiyay xagga dhaqaalaha idinkeedu ku jiraan dabcan waxa loo baahan yahay inaad samirtaan dad aqoon leh inay ka shaqeeyaan marka waan idin soo dhaweynaynaa waan idin bogaadinaynaa waan idin ku garab taaganay ka maamul ahaan ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaanba bulshada gobolka iyo degmada ku nool loo tababaray dhaqaalaha ama arrimaha bulshada si ay dadku u adeegaan waxaan leenahay waa wax lagu farxo weeyaan soo dhawaada dhalinyaro una adeega bulshadiina waxaan rajaynaynaa in tababarada noocana aanu badino oo kuwa kale oo ka duwan noocana aan idin soo diyaarin doono haddii Ilaahay raado waxa kaloo aanu idin diyaarinay hadda in internship-kii meelaha mataqaana dawladdu mataqaana wasaaradda qorsheynta wasaaradda waxbarashada muxuu ahaa dawladda hoose dhammaan qaybaha kala duwan ee marka xafiisyada dawladda iyo kuwa gaarkaba in mataqaana aynu qayb ka qaadano oo ku qaadano programka internship-ka de Soomaalidu berigii hore de xooluhu bay iska dhaqan jirtay oo ay oran jirtay oo dhaqaaluhu halkaas ku jira laakiin iminka dawaynu ogaanay dhaqaaluhu inuu meel walba ku jiro oo meel walba uu galay oo wax waliba ay u baahan yihiin dhaqaale iyo dhaqasho iyo qorsheyn iyo nidaam marka habka cilmiyeysan ee caalamkuna de maartay
loo baahan yahay inaynu la jaan qaadno ayaa dee muhiimaddu ay ku jirtaa inaynu maaragtay aynu aqoonteennina aynu ku dhisno waa aragnimadeennina aynu la nimaadno wixii aynu qabanayna ay noqdaan dee wax cilmiyeysan ونحن عبدي بدعس 24 TV مقالة برعو